نبينا صلوات الله وسلامه عليه وحنات المامي maalinka jimce inay ka mid tahay saacadaas oo aan waafaqayn qof muslima soo waliba tukanaya ilaa se hadduu waafaqo ama uu asiibo uu saacadda ku beegmo allah subxaanahu wa tacaala uu wax weydiisto waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siinayo nabigeena wuxuu leeyahay fiihi saacatun laa yuwaafiquhaa cabdun muslimun wahuwa yusalli yas'alu allaha shay-an ilaa actaahu iyaahu qof muslima ma jiro ama addoon muslima ma jiro oo saacadda waafaqa isagoo tukanaya ilaa allah subxaanahu wa tacaala isagoo wax weydiisanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaa ilaahay waa siiya markaa xadiisku wuxuu sheegayaa saacad inay ku jirto saacadda qofka asiibe ee yani waafaqa in allah subxaanahu wa tacaala uu siinayo waxa uu weydiistay sidoo kale wuxuu allah nabiguna tilmaamay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qofku inuu yahay mid salaad ku jiro oo yusalli yani in salaadii ku ducaysto ayaa xadiiska laga qaadanaya marka waxaa ku jirta saacadda muhiimka aadka muhiimka oo qofka saacad mustajaaba oo wax la aqbalayo way laga faa'iideystaa maanta oo kale waa maalin jumca way laga faa'iideystaa marka jaaniska oo xadiiska nabiga lagu baraarugsanaada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu